بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل كانوا حرونت الله تلنت ضدك يهرمرنت الشقادة ولا شيء الله ليس وادي توري سفين ولا ليال وحربا ما أنت بلينا أن لو ذاقه أرم آد نقصه نقضي أو آد أولي بدن ولا ليال رجع صوماليات يقبلها الصوماليات أجانب كبورسده هدي أي رجع هنا المهودو وحيلا كل مكان إن أي مارتين يتحمادان مركلي هوية وحكوا شيء هي إسنابيت باكوا شيء أما هوية قالها كل شيء أما هوية صوم مسلم تاكل شيء أما هوية مسلمنا كلها أجانب باكوا شيء عنقاسو أب ونية حمان هيا سيف سيد أبضنا وحو آخر نقول دونا أما نقول هيا تفتف wadamo kale u tiftifa ama dalka hooyo ka dhalatay u tiftifa wuxuu noqonayaa inuu dalkaas u shaqeeyo hooyadiis ay lahayd hadii de waldankaas uu aadana hadee waxa waaye niyad xumo ayuu ama wiilkaas ku noolaanay ama gabadhaas ku noolaanaysa tan gabadhu dhashana waxay la kulmi doontaa iyadoo dhibaato badan in ilmihii laga qaato inay wadankii maaragtay wadankeedii ay ku baaba'do halkaas mustaqbalkeedii dhaqankeedina halkaas ku baaba'o midda saddexaad waxa waaye in maaragtay ninka odayaasha ama gabdhaha guursanaya ajaanibka ahu dhaqaalahoodii iyo maalkoodu way ku baaba'ayaan gabdho badan oo ay guursadeen ba aragnay rag Soomaaliyeed waxaan aragnay inay ay maaragtay lacagtoodii baabi'inayaan haddana ay isdurahayaan oo odagii laftigiisa in la duro la rabo oo haddii dhaqan kale uu yeeli karin ayagina isduraan odagiina ay duraan si aysan ilmo kale uusan u dhalin ama maaragtay ragii laftigiisu markuu isduro cirbadahaas ay ka qaadaan dhibaato badan ayagoo xaasidaya gabdhahaas ajaanibka ama gabdhihiina ay xaasidayaan ragga ajaanibka marka walaayo dhibaato badan baa jirta waxaan kaloo idiin dhiibayaa bal walaalayaal rag dad badan oo dhalinyaro oo arintaas aad iyo aad dhibaato kala kulmay ama maaragtay dhibaatada ay leedahay halka nooga waramaya soo dhawaada gabar Soomaaliyeed ayaa waxa guursaday nin Algerian waa taariikh true story marka gabadhi waa heshiiyeen asaga marka sharci ma lahayn ujeedadu guursaday marka maxay ahayd inuu sharci ku helo sharciga uu ku helay marka sharciga uu ku helay wuxuu ka dhalay saddex caruur ah saddexda caruurta ahayd gabadhi waxaan aadaynaa u dhaha marka ma dhig toos mo dhahayo marka waxaan aadaynaa Algeria waxaan aadaynaa u dhahay Morocco ma fahamtay transitka marka wuxuu ka dhigay Algeria ka dhigay marka Algerian maadaama uu yahay Algeria markii la tagay oo qaybta transitka la joogo ayuu si hoose saddexda caruurta ahayd ayuu musqushan aadayahay tirinta suuliga ay ku maqneed ayuu gudaha la galay waa nin Algerian gudaha la galay wixii caruurtiisana waa watay familkiisa banaanka ku sugayeen gabadhi haday musqushi ka soo noqotay ama suuliga sida dadka Soomaaliyeed u taqaanaba oo ay transit ku soo noqotay wax jooga ma laha gabadhi shooga noqotay intii orod inta hooyo wax caruurta ka maqantaan oo dareemi karta xaq orod ciidamadii marka oo immigrationka ay arkeen gabadhii waceen maxaa qaldanay dhahan waxay dhahan aniga ninkeygii waxa maqan caruurteydii ay maqan wax hada rasijiyaal meesha ciidamadii maaragtay meesha wax kala raadiyeen iyagu ogeen already kaamirooyinka wixii way arkaan ninka gudaha u galay gabadhii shoogay noqotay marka xogaa waa isku buuqday isla markiiba marka waxa halay wacay dhahday marka safaaradda halay wacay dhahday embassiga loo wacay embassiga yimid gabadha sidii lagu la hadlay xaqiiqatan waa arin oo dhab ah oo dhacday waa xaafadeena ka dhacday aragtay ugu mahadsantiin guurkayga ajaanibka iyo dhibaatooyinkii aan kala kulmay waxaan ahay gabar Soomaaliyeed nolosha waxaan la wadaagaa wiil ajaaniba marka aad tahay gabar Soomaaliyeed marka aad guursatid nin cadaan ah oo ajaaniba amba carab ha noqdo amba cadaan kala ba noqdo nin muslim oo cadaan oo ajaaniba marka aad guursatid dhibaatooyinka aad kala kulmaysid ayaan kula wadaagayaa dhibaatada horta aad kala kulmaysid waxa waaye waxa tahay adoon marka aad tahay gabar Soomaaliyeed nin cadaan marka aad guursatid waxa tahay adoon baa tahay aniga guurkayga aan ku jiro laba marka loo kala qaybiyo 6 sano ugu horeysay 3 sano waan qayliyay 3 sano qaylaan ku jiray waan qayliyay waxaan ku qayliyay oo doonayay wuxuu ahaa ninka ajaanibku sidii gabar Soomaaliyeed ku qabi maayo sidii gabar Soomaaliyeed loo qabay ku qabi maayo sidii gabar cidooda uu qabi lahaana ku qabi maayo ninka ajaanibka
lahjadeyda ininka oo raaliya insha allah inaad fahantiin baan rajaynayaa ninka ajaanibkii sidii marka aad tahay gabar Soomaaliyeed oo ajaanib oo madow marka aad tahay sidii gabar Soomaaliyeed loo qabi lahaana kuma qabayo wuxuu ku qabayaa si isagu uu sameystay xeer isagu uu sameystay qofku markuu ka cabsoonin kaama xishoodo markuuna ka xishoonin xeer ka qabtana ma jirto marka aad tahay gabar Soomaaliyeed waxa tahay qof Afrikaan oo madow marka aad goosatay nin cadaan oo being mistreated. I'm never again in my life. sababta uu dilay waxay tahay jinsi nacaab uu qabo Soomaaliya ayuu u dilay mana nafareys diinteena ina xaaskeena si arxan dara u dilno nik gabaray ma guurso lahayd nin aan dhiigaaga ahayn jawaabta hadda tahay assalaamu calaykum baajoomasti soo dhawaada waa aniga ku socoto gabdhaha Soomaaliyeed sidaan la soconaba in gabdhaheena soo sheegaba gabdho waxa jiraba in qeyrkiiba u soo jeedin dhaga laab u duleelo iyo dhaga leerta u duleelo badan noqday dhagaha leerta u duleelo ayaa badnaatay marka ilaahay ayaa qof naga dhigo dadku soo wada hanuuniyo walaalahay muslimiinta dhunsan ilaahay yani ha soo hadiyeeyo sidaan la socono xanaaqa ragga Soomaaliyeed oo aqligadeey gabdhaha markaan yaabay ileen waxaan arki jiray qoraalo waxaan dhihi jiray niman baa naaga dumar magacooda soo saarto saas uu sameeyo laakiin markaan arkay dumar isi soo dhigtay Facebook ayadaba hadlaysaba aniga argagax ayay ila noqotay qaasatan kaba sii hadlaysaba diinta islaamka wax ka sheegaysa anyway gabar kasta oo muslim taas horta waa baadinimo iyo daalinimo allahna ka magan galnay gabdhahaas walaalahay ahna ilaahay horta albaabka khayrka qabaha u furo sidaan la soconaba waxaa jira in laga hadla ayaamahan dambeeto ragga Soomaaliyeed ajaanibta raacayna iyo ajaanibta fiican waxa seeta laga hadlayo horta shariicada islaamka wax kama qabto qof muslim ah qofka kale muslim walaagsan oo guursado مسلم يعني مجورس كرنا ما لديهن أي أجنبي لبا أجنبي نكال هن مش جورس كرت ما لديهن وقف كم مسلم وجورس كرتا لكن كأهان هذا دقن وحكوفي عن traditional كاجا يحكوا ناكسن إن جورسة الجنسية هذا because الجنسية هذا قفك كأهو كفهم كرا بكست أو سوي جهو لكن قفك كاج النيرة الصوماليات وليش الصوماليات خير الله سيا ودعينا يا ولي وإن يكفي جنادان كان فوقادان جورك أجنبي ولو أيت هناك مسلم ما أرتم معه وأي واحد استدعي كله هدور هيرك بربرو المهي هو ياسكله هو يراعيان جبت بنا متقنا ما أرتم لو أرك ما يمتقنا ما أرتم معه عقبدانا كهر ما نقف كاس أنا ما أوران كنا بقول كيو بقول واسكمت لكن سمتقنا 0.001 أرنت سمتقنا ما أرتم لقيا ما أرتم إني كدو أنت لكن سيدا مجورتي بقول كي بس قالي سكاشن عروتي هيرك هو يراعيان ما أرتم أبنا عروتي بنتقنا ما أرتم ولستقولين دنا ما أرتم waxaad aragtay dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed gabdha iyo wiilalba guursadeen ajaanib ah marka ubadkooda halkee bay ku dambeyn doonaan ayaa isleedahay su'aal wanaagsan ilmaha noocaasa inaku Soomaali baanu nahay saraxadii ma artay muxuu ahay shacbiga Soomaaliyeed waa shacbi waa hal family waa ummad mataqan waa shacbi ma artay midabka iyo diinta iyo dhaqanka iyo afka iyo mataqan ma artay muxuu ahay deegaanka ma artay wadaaga وشعبي متقنا شنتي قوس بالله وأما صدح متقنا سنة أنا وأن في لا حسي شيء متقنا مارته وشعب وحانونا هاي أمد أن ولي حب سيبنين وعشان بلن بالستا وحكتنا تندير ديرته ويحب سيبنين متقنا حاليا متمرفز ولي إنكم متقنا مارته ما نحب سيبنين مالك استنتقنا حلقة يا متقنا ميدا بكذا هنا قاضنا سيدا أوجد وحلو بها هي مجتمع متقنا مالك استوى أوجد وأوتبه وإن واقع نقطة كنا فانا آمنانا متقنا مارت دقن كودا مارت ويكفي جنادان جورك أجنبي قوتك أي سامين نسا وسامين كرتها مستقبل أهاننا وحيكفي عن دونا مارت دقن كي يدينتي أفكي بيكفي عن دونا مارت وحا goor noqoto maxaa sababay imaashiyaha hadi Soomaaliya inaad ku soo noqoto good question khayr Allah kusim runta ka sheegay guurkayga gabadhi ii dhaxday gabar wanaagsan baa iyada dambi ma lahayn yaani mataqana waligaan isku baana dhicin waana cadeyn doonaa hase yeeshee waxa sababay inaan Soomaaliya ku soo noqdo waxay ahayd marka soo noqoshadaydi mataqana maarta sodoga iyo sododay ay weelahayn eega betra la oran jiray 90 kilomitir rajin noo jiray mataqana deganaayeen sabti kasta wana dul taagnaan jireen
haddaan dhaano war maxaa mataqaana waana shaqaysanay maxaa dhacay maarata isku dhibaysaan waxay dhihi jireen kama qaloon jirin eyga hase yeeshee markii ilaahay toobadda i waafajiyey yanaakii waxaan ku yidhi walaalay waalidka marna na dayn maayaane markay noo yimaadaan xarigga yaan eyga laga furin taas ayaa koos dhalisay maarata muxuu ahay caburiskii iyo jawigii mataqaana maarata isbedelkiisii taasaa eygaasaa igu khasbay inaan mataqaana maarata dalkayga ku noqdo carruurtaydana badbaadiyo mataqaana